نادي فوق دفنها وسلام انتهي كسيو كسي دارجنا هقامي كسيو كسي دارجنا هقامي وأقول بالكيغة اللو قولي وأقول بالكيغة اللو قولي مساكين تا أرانو ودعي سنتهي مساكين تا أرانو استفعت سياجي وأنك أمان تجابك نظيف والله حنباري بنانك أسوتي يقين ولا من قناة وأنا أنا حنبارين كما ترين وهلنا واسمع كلامنا ولد هذه هوري طريق أي مرتي وحكبدل أنا فوقش وحكبدل بان كلامنا وحكبدل يسأل نقطة دولة قوان كذا أدي أرلادا أدي أن نقول حكومين ninka wasiirka waxa la yahay uu qabiil kasta ka dhashay hadaa doonta qalkaadina ku dhufato ee ummadda wax ka hadlay waxa lagu haysto yaa waxay tahay dawladdiisa muuse xukumin ma sheegnaa waxyaalaha nolosha iska kamid ah Soomaaliga dadka mucaaradkaas leeyahay waxaan ku leenahay masaakiinta u rooneed ma sheegnaa agoonta u rooneed dadka u diiday mucaaradkan baa diiday dadka asaga hadalkiisu igu fiicnaa in uga dhumaankayaa waa farxad waxa hadalkii aan diyaarsaday inuu iga dhumaan ka yaabi gabdhaha reer cali afkoodan ku hadlayaa nadiif wuxuu qabtay wax hadda la sheegay ma aha wax la koobi karana ma aha kursigaa inuu naga dhumin nin walba ku tartamayo falankeeda inaan qabanno baan meeshan iskugu imaanay nadiifna waa nin bihina garaade nadiifa waa lagu qaaday bihina garaad ahaan baa lagu qaaday wixii kale waa iska been weeyo anaga ilaahay aan ka cabsoono ballanti aan qaadnayna aan ka soo baxno ballanta aan ka soo baxno naagaha ballanta way ka soo baxayaan ninkan waan qaadnay bihina garaad baan nahay nadiifo waan ku qaadnay bihina garaad baan nahay awliyahan baan kuula tagaynaa ogaadeen baan kuula tagaynaa islaam baan kuula tagaynaa gaaladii uu qanjee la sheegayaan kuula tagaynaa adigana soco fadhiga ha fariisanin adiga laftigaada waa lagu jecel yahay waa la jecel yahay kaliya u fariisanin waa inaad socotaa oo fadhiyaasha aad samaysaa oo aad tagtaa oo meel walba aad tagto ana ra'yigaygaan ka hadlayaa laakiin nadiifow waan ku qaadnay gabdhaha waxay leeyihiin markaan iri nadiif ninka ugu horeeyay u duceeyayna waan ahaa dhuujis baan nooga khudbeeyey haamay baan nooga khudbeeyey ilaahay baan u baryay ilaahayna wuu guuleeyey hadda macnay waxbaan kaa sheegay maanta waan ku qaadnay laakiin waxaan kaa baryay inaad berri nin sacad nin leeyahay aadan noqonin sidii shalay aad noqotay aadan noqonin waxaan rabaa inaadan dawacna aad noqonin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii mudaniya abeed madal ku weydiisa moodkii gabaatiga tolkaa lagu marweeya waxoogaa shilimaadka ee maarta hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiimsiiso wax mashaakil ceeba waa malow la-aanteeda muraadkiisa waa u sahal ninkii muuga foofsado goortaad madyaha keento iyo sidig madiixaysa in haddiiba meherku ugu dhici muralla weeyaana dabadeed makaan loo dhisay aqal mariin weyna ayadaa maktabadaa leh iyo in muune iyo khayre adaa nagu manaystay allow nadiifa naga qaadin wey horta afartoo iyo shantoo aan ka badnayn inaan horta ku mashquullaba ma ahayn raggan waa isloogna annaga haddaan ree calinahay waxaa loo yar wareegahay dad xoogaa inta laga bayrol ku jiri iyo wax kaloo asagana waxyaalo kale u muuqdaan iyo waxaasaa waxay damceen ree calimaan dabagedinna tiina waan ka diidnay annaga ree cali haddaana cawliyahan baan nahay meeshuu cawliyahan maray ilaahay nagama duwo lamana shigshigahayo xanna ma aha wax laga qarinahayana ma jiro waa dhaar iyo dhulmahante duqaasna adagoona inta ka xambaarin kama tegayno salaadana waa sidaas sheekada intaasaan kusoo gabagabaynaynaa haddee wax kaloo kasii hadallama should appear in a political slogan waana badan ayaga qaade midda ugu dambayso oo aan rabo waxaa markaan siyaasi leeyahay bulshada ka dhalatay waqti modern waa la joogaa oo waa la hormaray in bulshadaada aad ku qamaarto mase aad ka dhigto waxba yahow waa laga fiican maxaa dadka aad ka dhadhacsinayso wax maskaxda ay qaadan karin oo shay cajiib moogta haddaad dhahdo anaa kan anaa kuusa waxaan soconayn marnaba
dadkanayta waa wixii waan fahmahaynaa kuurahan waxaan u malaynaya la dhace waa wax waddanka guud ka dhace ku dhawaad 20 iyo intaasoo gambar baa la jahawareeri waan og waddankan bay ka dhaca hadda socotaaba koos baa lagu dabagedinaa meelo qaar haddadan saacadan marka dadka dad oo la imaato gambarka nadiif baa la dhace aniga waxaan ina sheegi nadiif kanayto doqonka ee la sheegayo ee cilmi la'aanta ee la sheegayo hadduu gol iyo goofba noo buuxiye ku cilmi leh oo waxba keenaynin masaakiintu way dhammaanaysa runtii aniga kula hadlayo runtii run sheegayna midda kale ani doorasho waan soo maray waan u istaagay gambarka madoogaashay inta waxaan malin 2013 baan taagnaa waan ka soo dhacay dawladda nadiif waxba kama helin laakiin waxaan ku noolaa kii ani 2022 wuxuu yiri niyow nadiif ana waan nacbanahay laakiin isha ii muuqato ummadda ilaahay baaba iska jeclaatee anoo rabin buuba iska soo geliye inay isdhiibi doonaan umaleen buu yiri koldhow waana wax jiro marka waxaa la yidhaahday ilaahay markuu qof uu jeclaado oo adduunyada joogo jibriil buu u sheegayaa jibriil buu wuxuu dhahayaa waa jeclaaday ninkaa jeclow jibriil malaa'igtii buu u sheegi malaa'igtii waxay u soo dejinaysaa ummaddii yaa loo soo dejin intan ummad ee gaal iyo muslimba nadiif leh dee waxaan dhihi lahaa wax kale ma ahay ummadda ilaahay sabaddaa laga jecel yahay marka haddiiba la jecel yahay waxaan u malaynayaa insha allahu sidaan rabno ee hadda maanta iskugu imaanay inoo noqon doonta biillahi kariim raacali baan la hadli raacaliyow isma xukuntiin odayaal baan qabnaa mutacallam baan qabnaa laakiin dad intuu meel fariisi isxukumi kara oo xukunkooda go'aan meel ku gaari kara ma aha awlaanka kale wax laga duwanay ma garanay bararo wiil raa afgaaba dibadda ka imaaday sabab kale umuu imaanayna wuxuu u imaaday inuu doorashada u istaago 2022 gabana inuu u istaago raa afgaab inta dabay ahaayeen way fadhiisteen go'aan bay gaareen diyaaradda ku noqon la jira ninka asaga waa noqday diyaaradda ku noqday anaga maxaa naga dubay annaka waxaan naga dubay maxaa waaye waa nin baa imaani hadda ninkan xushmada socdo su'aal la jira runaantii raacali baana soo dhahe mutacallimkiisi iyo odaygiisi wuu firiistay iskamu bilaabin campaign iskamu bilaabin soo dhib kale oo jira mara dhibka horta annaka dhaxanada raacali waana nasiib darro hadda inaan laba meel aan ku kala qaybsannahay marka arrimaha hadallada xunxunne aan ka soo noqonno haddii aan dhahno maanta raacali baa noo meel baan maraynaa meelna ma mari karna been waay ummaddii ilaahay iyo sagaal ka dabay cowlahan meeshay marto umbaan maraynaa marka ana waxaan ku talin lahaa dadka walaalahan ee hadda dhinac jiro sidii af wanaagsan iyo ehelnimo iyo walaalnimo iyo ixtiraam leh loogu tagi lahaa laguna soo dhawaysan lahaa oo mid raacali ah midkoo aan u noqon lahayn sidaasaan ku talinaya aniga sidaa ayadaa ha laga shaqeeyo bismillaahi raxmaan raxiim declaration this declaration is made in Garissa on this day, Thursday 21st January 2021. This declaration is made after meeting us by us elders, elected ulama, as well as youth, women, representative, all the sub-clans of Ray Ali clan. We declare our unanimous endorsement for Governor Nadif Jama to be the sole candidate and flag bearer of the Aulihan community for the gubernatorial seat for the 2022 election, inshallah. We make this endorsement in the interest of the larger Aulihan community and the people of Garissa County in general. In making this declaration, we make solemn request to all other persons who have shown interest in the seat of vacate their ambition for now and give support to Mr. Nadif. In making this declaration, we call on all the other Aulihan sub-clans to support our endorsement of Mr. Nadif as the sole Aulihan candidate for the gubernatorial seat for 2022.
In making this declaration, we make humble request to the people of Garissa County at large to support Mr. Nadif for his 2022 gubernatorial bid. Wallahu waliyul tawfiq. Arrintan oo security-ga oo soo noqotay oo hadda noo dhaxayso annaga iyo Isiolo anigu arrintaas wax badan ma hadda aan ku dhex jiray halkeeda aan waxaan u arkaa ama dhibkeeda horta inuu yahay dhib siyaasi u arkaa inuu yahay dhib siyaasi ah oo siyaasiyiin ay ka dambeeyaan maxaa yeelay hadday tahay xuduud hadda annaga iyo nimankan walaalaheen booranta boqolaalo sanaan aan jiraan ahaan jirnay weligeedna xuduud iskuma dagaalamin marka wax kan waa arrin oo siyaasiyiin ay ka dambeeyaan waxaan codsaday haddana aan codsanayaa in annaga iyo siyaasiyiinta Isiolo aan wada fadhiisana oo si saraax ah u wada hadalna waliba iyadoo ay nala jirin dawlad in annaga kaliya wada hadalno oo waxyaabahan aan isla afgaran waa mid arrinta kale waa Garissa hadda dhibka ka taagan waa la wada garan dad waxaa jira hub la wareegayaan oo maalin kasta meel qac ka siinayaan oo dadka isku dirayaan oo dhibaato weyn abuurayaan dhibkaasna ma yaraanayo mana si yaraanayo haddii dadka NATO aan hubka laga qaadin marka mid Garissa ayada waxaan leeyahay waa in hubkii la qaadaa dadka waa in hubka laga aruuriyo oo dawladdan Garissa dawladda systemka security Garissa ka dhisan waxaan la hadlayaa waa regional commissioner-ga county commissioner-ga intelligence-ka iyo dadka Garissa madaxda dawladda dhexe oo ayaga ay khaas ku tahay in hubka wax ay ka qabtaan shaqadooda ka qabsadaan dadka hubka hayo waa in hubka qaadaan haddii kale ahayn dhibaatadan way sii weynaan kartaa culays badan oo xal loo way keeni kartaa intaasna waxaan leeyahay dawladda dhexe waana ka shaqaynaynaa sida hawshaas ayada ay muxuu ahaa wax loo qaban lahaa waad mahadsantihiin